السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan walaalaha ku xidhan kanaalkeena waayo sheeg muuqaalkan waxa aynu kaga hadli doonaa maxaad ka taqaanaa tirada saynisyahanada islaamka ee ay dishay hay'adda sirdonka ee Israa'iil ee loo garan og yahay mossad. waxaan halkan kuugu soo gudbin doonaa qaar ka mid ah saynisyahanada islaamka ah ee ay dishay mossad tan iyo 1960maadkii. waxaa la aaminsan yahay in hay'adda sirdonka dalka Israa'iil ay dileen saynisyahano badan oo muslimiin ah. bishii Diseembar sanadkii 2016 magaalada Esfagas ee koonfur bari ee dalka Tunuusiya waxaa lagu dilay saynisyahan muslim ah oo lagu magacaabi jiray Maxamed al-Sawaari. kooxda Xamaas ee dalka Falastiin ayaa dilkaasi ku eedeysay sirdonka Israa'iil ee loo yaqaano mossad. kooxdu waxay sheegtay in saynisyahanku uu kala shaqaynayay samaynta diyaaradaha loo yaqaano droniska. 1967kii mossad ayaa dishay saynisyahan arrimaha nukliyeerka ku takhasusay oo u dhashay dalka Masar kaasi oo lagu magacaabi jiray Samiir Nuqayb. Samiir ayaa lagu dilay shil gaari oo ka dhacay dalka Mareykanka isagoo sida la sheegay maalmo kadib qorsheynayay inuu ku laabto dhulkiisa hooyo si uu aqoontiisa ugu caawiyo. 1980kii saynisyahan kale oo u dhashay dalka Masar ayaa lagu dilay hotel ku yaala magaalada Paris ee dalka Faransiiska. waxa uu ahaa aqoonyahan ku takhasusay arrimaha nukliyeerka waxaana dilkaasi ka dambeeyay isla sirdonka Yuhuudda. saynisyahankaasi ayaa xilligaasi gacanta ku hayay barnaamijkii horumarinta quwadda nukliyeerka ee dalka Ciraaq waxaana lagu magacaabi jiray Yaxya al-Mashhad. 1991kii sirdonka dalka Israa'iil ayaa la aaminsan yahay inay dalka Faransiiska ku dileen saynisyahan u dhashay dalka Lubnaan kaasi oo lagu magacaabi jiray Ramal Hassan. 1993kii guri uu Qaahiro ka deganaa aqoonyahan qoraacaan ahaa oo lagu magacaabi jiray Jamaal Hamdan eheladiisu waxa ay sheegeen in dilkaasi ay ka dambeeyeen sirdonka Israa'iil. waxaa gurigiisa lagu waayay dhammaan buugaagtii uu kaga hadli jiray dhibaatada Yuhuudda. 1997kii jaajuus ka tirsan sirdonka Israa'iil ee mossad ayaa ku fashilmay isku day ay ku doonayeen inay ku sameeyaan madaxii siyaasadda kooxda Xamaas Khalid Mashaal waxaana falkaasi uu ka dhacay dalka Jordan ama Urdun. 2004kii Ibrahim al-Daheri oo ah saynisyahan u dhashay dalka Ciraaq kuna takhasusay arrimaha nukliyeerka ayaa waxaa lagu dilay magaalada Bacquuba ee dalka Ciraaq. 2010kii waxaa sirdonka Israa'iil magaalada Tehraan ee caasimadda dalka Iiraan ay ku dileen saynisyahan lagu magacaabi jiray Mascuud Ali Muhammadi. isla sanadkaasi 2010kii Majiid Shahriri oo ah saynisyahan u dhashay dalka Iiraan ayaa lagu dilay qarax gaari oo ka dhacay magaalada Tehraan. dilalkaasi waxaa si toos ah loogu eedeeyay Mareykanka iyo Israa'iil. labadan dowladood kama jawaabin eedeymaha loo jeediyay. 2010kii sirdonka Israa'iil waxaa dalka Qatar ay ku dileen Maxamuud al-Mabxuux oo ahaa taliye sare oo ka tirsanaa taliska ciidanka kooxda Xamaas. inta aanu ku kulmi doono muuqaalka kan xiga waxa aan idinkaga tegayaa ammaano Allah.